بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله على كل حال. والله سعودين دمانتنا والله سعوني حالة أدونك كتشرتا هي حنون كان أدونك خلق القليي إن بدن أودمتي قار بدن أي أوتشيفان شيء كذا أدونك كتشرتنا إسقى أي نقطيون يا هالستيسة ودن كان أنشوجنا كينيا تقريبا أسبوع كهر أو تنبري كهر أي حالة دي يوجه الرجال هلي ترى تضبط يوحي كأجدوه إلى مدة سي مرة فين تدخل الشيء ما أنت يا حالة إعلامية إن أي ترك هلي كردي حالة يدا أمريكا سامين كل هذا هاي نلاشى جود يكرهان كوبها عبادة صادق سنتين إلى لحبري كهر شنبري كهر هي مساجد غارك والله حري أنا كنا وحنا كنت ذاليني إن المساجد الحرين وليس وين بلا هذا هاي مساجد الحرين تنقضة وحكى اللي فين لهلا مويه دور بريكوهر أنا جي إمامية ذا مساجد صدر مسجد سكاني هرنتي لقى نقاشي علماء ذكوا ذا هلين وحال استوصي إن المساجد الحرين إلى أم الدولة أمر توصى صار توكو سابسن قوبها عبادة أما الظروف تعافي ماذا يودنك أي وحس كبدلان وعليس كسوكر لكن أنك إننا أنت كهر دهن ومساجد أنا كدك دهن حريتان كود إلهي فضلك مدة كسو يرب مودني إلى شنبري صلاة الجمعة تكني شنبري بان جماعات تكنيني أنت سوى وحوي دابا أنت سور ريحني ووحوي بريشر بس كتشري عدادس دولة national government-ga hadda ka hor galabta ka hor kama soo bixin go'aan cad oo dhahaya goobaha cibaadada waa in la xidho sidaas daraadeed annaga waxaan ku tashanaynay maadaama goobihii caamka ahayd ay furan yihiin maqaayadihii suuqyadii gaadiidkii caamka ahaa meel walba ay furan tahay kaniisadihiina maanta ugu dambeysay ay isu yimaadeen dawladdiina ayna soo saarin warcad oo xidhitaanka masaajidda iyo goobaha cibaadada ah inaan ka hormarnoon degdegno annaga aan masaajidii sii xidhno arrintaasi waxay arrintan ka dagaalamayn bareesharka faraha badanna runtiina nagu haystay isbeddel baa yimid ma aha inaan garowsan la'nahay xanuunkan iyo dhibku caalamka ku hayo ma aha inaan macluumaadnaan la hayso oo waa la soconaa xanuunkan iyo khatartiisa iyo siduu u faafayo iyo bini aadamka dhibku u geystay ma aha inaanan dadka caafimaadkooda iyo naftooda aanan danaynaynin sida dadka qaarkood u dhigayaan ma aha cid walba annaga ka danayn badan dadka caafimaadkooda iyo noloshooda laakiin waxaa aad iyo aad u cuslayd iyadoon duruuf kalifta la helin masaajid ilaahay oo lagu cibaadaysanayo xidh hawshaasaa cuslayd aadna way u culustahay waxaa soo kordhay wasiirka caafimaadka kolley saad loo socotaan baan galabtuu hadlay wuxuu sheegay xaaladuhu 7 ay ahaayeen maanta 8 xaalo waddan ku soo korodhay 8 xaalana hay dad kale la sii xiriireen iyo waxyaalo badan baa jira
ilaa dad badanna baadhis baa lagu hayaa buu sheegay inta macluumaad markuu ku bixiyey amar wuxuu ku bixiyey laazim ah oon khiyaar ka furayn in goobaha cibaadada la xidho gaar ahaan wuxuu af ku dhuftay masaajida iyo kaniisadaha ma furnaan karaan amarkaas waa amar dowladeed waana awood aanan annaga khiyaar nooga furayn masaajidana ma sii furnaan karaan dowladda amarkeeda ha laga hortago oo ha lagu booqo oo ha la jabiyo oo ha la caaridana ma qabno laakiin keliya inaan mas-uuliyaddii eedda iska leexinno oo ilaahay hortiisa maalinta qiyaamada aan la dhihin idinkoo heli kara ama khiyaaraad kale jiraan maxaad masaajidka u xidheen arrintaasoo culus ayaa culayskeedu dhinac kale naga aaday sidaas daraaddeed ma lihin khiyaar kaloo noo furan ma jiro oon ka ahayn in masaajidka la xidho annaguna maana xidhine dowladdaa xidhay masaajidii waddankana dowladdaa ka talisa ruuxa muslimkuna ama ha jeclaada ama ha necbaadee awooddiisa inta ay tahay buu mukallaf ku yahay wax awooddaada ka baxsan ilaahay kuguma kallifin adigu ama jeclow ama necbow laakiin amarkan waa amar dowladeed waana in sidiisaas loo qaato waay annagoo taa ka duulayna markaa masaajidda waxaa xidhay dowladda national governmentigaa xidhay wasiirkaa ku dhawaaqay almuhim waxa weeye amarkaasaa jira sidaasayna u jiraan masaajidkuna laga bilaabo xilligan maalin ay tahay axad ah habeen isniin soo gashay masaajidku sidaasay dowladdu ku xidhay masaajidii waddanka ku taalay oo dhanna sidaasay ku xidhay kaniisadihii baa la mid ah goobihii caamkeen hadda ka hadlayay baa la mid ah hadda marka wax weeyaan warku saas ku cadiya intaa wixii ka dambeeya waxaan idin siinayaa talooyin yar guryaha lagu tukan guryaha marka lagu tukanayana waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala ajirkii aan ka heli lahayn masaajidda salaadooda inaynu guryaha ku helayno insha allahu tacaala waxaa yeelay nabigeenna waxaa ka sugan sal alla alay wasalam axaadiis badan oo tilmaamaysa haddii ruuxa muslimka cibaado uu lahaan jiray cibaadadiina ay u diiddo duruuf ka xoog badan caafimaad ama safar ama duruufta u diiddo nebigu wuxuu yidhi sal alla alay wasalam waxaa loo qorayaa ajirkii sidii isagoo sameeyey oo kale marka waxaan rajaynayaa in ilaahay agtiisa aan ka helno ajirka innagoo jamaaco ku tukannay oo kale ajirkeeda khaasatan qalbigeennu aad buu u jecel yahay in muxuu ahaye jamaacadii iyo masaajiddii noo sii socoto taa marka waxa weeye guryaha laysaga tukan iyo meelihii kale jaanis loo helo ilaahayna tabaaraka watacaala ajirkeenna inuu inoo dhammaystiraan rajaynayna biidn illahi tabaaraka watacaala qodobka kale jumcada haddii la gaadho masaajidana aan la furin oy saa u xidhnaadaan duhur baad tukanaysaan 4 ragcadood ayaad tukanaysaan meelihii naasaad ku tukanaysaan maadaama isuimaadkii iyo khudbadii iyo jumcadii suuroobi weyday fuqahada badankood say qabaan duhur baa bedel ka ah marka taana duhur baad iska tukanaysaan insha allahu tacaala qodobka saddexaad waxa weeyaan masaajid dhismihiisa inoo socday meelaha ay masaajidka dhismihiisu wax ka soo galayeenna waxaa ka mid ahaa jamaacada iyo masaajidka la imaanayo iyo waxa aad bixinaysaan waxaan markaa idinka rajaynaynaa insha allahu tacaala sadaqadii hagoynina maxaa yeele masaa'ibtani markay timaado waxyaalaha ilaahay loogu dhowaaday masaa'ibta lagu qaado sadaqadaa ka mid khaasatan gurigiisa lagu dhisayo marka sadaqadii hagoynina waxaad qaadataan embeesada iyo tiil numberka masaajidka bangiyadiisa halkaa insha allahu tacaala soo isticmaala maalin walba wixii aad bixin jirteen 100 shilin 50 shilin 20
masaajidka dhismihiisa insha Allah ta'ala suusan nooga kala goyn haddana sii sagootiya soo salaad cashamayna ku sagootiya haddana sanduuqa sii sagootiya insha Allah ta'ala ilaahay ha idin barakeeyo inta waxaan ku darayaa oo ku gabagabeynayaa muxuu ahaayay aadaanka masaajidka insha Allah ta'ala waa ka bixi doonaa laana aadaanka waxa loogu talagalay salaada dadka waqtiga inuu galay in lagu ogeysiyo hadii jamaaca la heliyo hadaan la helinba xataa ruuxa kaligiya baadiyaha jooga uu aadaama oo shariicadu aadaanka waa u ogolsay maadaama marka dadkii in waqtiga galay aadaanku yahay muhiimadiisa masaajida aadaanku waa ka jiri doonaa insha Allah ta'ala marka Allah idin barakeeyo waxaan ku khatimayaa ducadii inooga socotay masaajida iyo cudurkan iyo masaa'ibta iyo aafada ducadiina yaa la halmaamin ducadii yaa la halmaamino salaadaha iyo si gooniya iyo habeenkii iyo xilli walba dadka ha loo duceeyo insha Allah ta'ala inaguna aan ducaysano ilaahay tabaaraka wa ta'ala inuu inaga badbaadiyo ummadana ka badbaadiyo ilaahayna tabaaraka wa ta'ala inaga samata bixiyo ramadaankii baa soo dhow oo bil baa ka laaban ilaahay waxaan ka baryaynaa in uusan xanuunkan iyo masaajida inaga xidhan inaysan ramadaan inagu gaadhin oo ilaahay tabaaraka wa ta'ala waqti fudud iyo si fudud masaajida dib inay u furanto ilaahay inoo suurta geliyo ilaahay tabaaraka wa ta'ala dalka iyo dadka iyo ummadda guud ba ilaahay tabaaraka wa ta'ala xanuunka Allah ka badbaadiyo inta qabtana ee u jirana ee u jiiftana ilaahay ha ka samato bixiyo inta ka nabad qabsan ee aan ku dhacina ilaahay tabaaraka wa ta'ala ha ka badbaadiyo ilaahayna masaa'ibta soo socota ilaahay tabaaraka wa ta'ala hayna garamariyo ilaahay ajir haynaga siiyo cibaadaadka aan masaajida ku oogeynay oo inaga xidhantayna badal khayr qaba Allah inaga siiyo ilaahayna tabaaraka wa ta'ala meel aan joogno caafimaad iyo caafi Allah inagu siiyo aad baad u mahadsantihiin jazakumullahu khayran sidaas iyo maca salaamati Allah wa xifdhi wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh